waxaan ugu talagalnay barnaamij fanka iyo suugaanta caawa sida caadiga ah idaacadda marka Soomaaliga ee Soomaaliya radio waxaan ku soo qaadanaa fan iyo suugaan oo ku casuuno fanaaniin mu'allifiin madadaaliyaal iyo odayaal Soomaaliyeed iyagu aqli iyo mu'allifnimo ay ku hartay waxaan si wanaag caawa laanta afka Soomaaliga marti ku ah fanaan daayiro Soomaaliyeed oo ka yimi qaaradda Ameerika oo dalkan marti ku ah waxa lagu magacaabaa Xuseen Cali Miiraale Xuseen ku soo dhow Soomaaliya radio iyo telefishinkiisa. Thank you Hassan waa mahadsantahay walaalkiis. waxaan ku leeyahay marka kale fanka Soomaalida marka la eego dhalinyarada ku soo biirta dad baa ku soo biiriyay kuwa hore jiray fanka goorta aad ku soo biirtay iyo halka aad ka soo gashay Hassan fanka qof walba maaragtay Soomaalidu way wada haysaan oo markaan wadankii ka soo tagnay waxaan aragnay dad badan oo wada heesa oo maaragtay adduunka dacaladiisa waa la wada heesaa laakiin qof walba meel uu ka bilaabaa aniga fankeygu wuxuu ka bilowday ubaxyadii degmooyinka Hassan Soomaaliya berigii la yaryaraa ubaxyadii degmooyinka berigii la yaryaraa maanta meel sare u maraya fanaan cod macaan oo aad looga yaqaan caalamka tahay. Thank you Hassan waa mahadsantahay. albumada iyo heesaha aad samayso way fara badan yihiin oo waan maqalnaa way kala duwan yihiin heesa lamaana ah jiro gabdho Soomaaliyeed la qaado oo anigu qaar ama mid kamid ah aan aad u jeclahay Miiraale waxaan rabay heestii ugu horeysay ee aad qaaday wallahi Hassan oo heeskii ugu horeeyay ee aan qaaday horta wuxuu ahaa heesa yar yar oo wadaniyo berigii la yaryaraa safka lagu qaadi jiray laakiin markii dambe waxaa jiray hees la dhihi jiray ha ilan hoy hoy ha eedaadin hoy hoy hana afoobin hoy wuxuu ahaa heeskaas hees aad u macaan oo berigii hore inkastoo dad badan oo Soomaalidu iska hadal badisay inkastoo dad badan oo iska sheeganaya aan idaacadaha ku arkay haddana heeskaas wuxuu ahaa hees aad iyo aad u qiimo badan abwaankii sameeyay Allahu naxariista waxa la dhihi jiray Cabdi Xuseen Jaamac waxaan qaay jiray ubaxa degmada waa beri baalaha oo dhan hadda waa jiraan dad badan oo kali qaada laakiin dad badan oo sheeganayaan waa la arkay waa suugaantii baa isku dhex yaacday maadaama wadankii isku dhex yaaco kale suugaantina isku dhex yaacday waka waxaan rabay inaan ku weydiiyo fanaaniinta Soomaalida ee soo baxda in soo adigu badan aad heesaysay sax adigu waxbaad uga duwan tahay right waxaad uga duwan tahay actor baad tahay shiraa sax waxaanu daawanay oo ognahay cajalad riwaayadaad ku jirto filim ahaan loo sameeyay sax xageed ka timid actornimada xageed ka timid wallahi horta riwaayada horta ugu horeysay aan jilaa ka noqdo matalo waxa iska laha Axmed Naaji waxa ahayd Yemen waxa la dhihi jiray Jinni Dhoof waxa ku xigtay riwaayad la dhihi jiray Qabya 2 oo Mareykanka ahayd 2002 oo uu iska lahaa abwaanka Maxamed Cabdullaahi Ciise Sangubon hees ku lahaa la dhihi jiray Dharaaraha oo saaid uga hadasha aad moodo dadku qaar ay yiraan waa aayad quraan marka labadaas riwaayadood aan si toos ah maaragtay aan uga tirsanaa jiray oo aan jilaa ka ahaa iyo heesaa inta way bal aan eegno heesta aan ku daawanay actornimada ah ee aad uga qayb qaadanaysay riwaayada iyo filimka la sameeyay Dharaaraha aanu dhageysano bal aan weydiino qaybta farsamada Dharaaraha waxa iska lahaa erayada Sangub laxankan waxa iska lahaa Mustafa Kiko saasay ahayd saasay u dhacaysay Miiraale markale والله بس صمدون راديو برنامج كيف فنكي يسوقان عاوة مرتين وقطوا هذا نوقف رحصنا هنيجي ينفع عاوة اسقرب فردنا واحد من سؤال شان كويدينا واحد هاي هسه واحد يكون جرتي رواية ده وحاي كم ده بندق رواية وسمي سنجوب ها كقريب قالك فيلم كانت كم النقطة مفهوم بعد كسر شيء بس أكتر نمو والله أرتا سنجوب محمود عبد الله عيسى سنجوب تاريخ ذا حسيسة أو أبوان وين وصومالية دواي منا أها أبوان قفل بوجد كسعودين تسكقات هيسة أكتر نغيرة وكوبنا ضد بدنا هين أو وذا هيسايها برجس وسنجوب نجا قاضي امتحان إلا سديد يتبنقف عن امتحان هو قلني وإن يروقات هدتكي إنكس امتحان أن كوباسي أو جيدا كوجلي محوها رواية قبيلة اللبات. الرياضة آد بيوم معي. آدي آد. محاكمة ده. هذا اللي وعليش. تي سنجوبنا دافته درج ميسد آدمي. أنا دمت سمويه دول كانوا واحد كل هذا. لنا عاجة مالك.
وهيس عجائب إريا عجيبة بلا واحد جري هيس كانوا اللي يرادوا حلها وأنا أدو جعله حلها أنا بعد بنو جيستا حلها سيدا يا سمية إريدا هي موسيقى هي الحاجات ومعتها نيهو ضد رق بدن oo kala duwan sameeyay heeskaas aniga laftirkeyga aadan u jeclahay waxa la yiraahdaa ninka sameeyay erayada Cabdiwahaab qeyd lay Allah u naxariisto waa dhintay laxankana waxa sameeyay Jim Sheekh Moomin instrumentiga ama qalabka la garaaco fanaaniintu way garaacaan qaar kamid ah qaarna way heesaan sidoo kale cod macaan yihiin sax ma ku dheertay codkan macaan ee cajiibta inaad garaacdo qalab instrumenti ah gitaar ama piano waxba ma garaaco sababtoo ah xasanow marka la yaryar yahay waa taqaanaa ubaxyada degmooyinka ama barbaarta laga weynaado qofku markuu lead singer noqdo Janis uma helo muxuu ahaa inuu aalad qabto marka that's why aan maaragtay aan u noqon waayay inaan aalad u xafido waay aalad ma xafido laakiin heesta waxa ii dheer waxaan sameeyaa laxanka erayada intaba waa sameeyaa heesaad adigu alifato oo la garanayo midta way jirtaa hees waxaa jira heesa oo way jira heesa badan oo aan sameeyo aan duubay oo laxankiyo erayadaba aan sameeyay laakiin hadda waxa caan ah dadku ay yaqaanaan hees la yiraahdo sagaal wiil oo ducaa aroosyada laga qaado erayadan macaan ee ay kamid tahay ninka xilaha badsheex xiisuhu wadaa hadaad igu darto ninka xilaha badsheex xiisuhu wadee afar xere galshaa ninka xilaha badsheex xiisuhu wadee afar xere galshaa xaq jiray qalbiga xubbi kuma naste xabiibi kalgacal adan kugu xudumay heeskaas waa hees qaaliya xasanow ninaa wuxuu u samaystay heeskaas xaaskiisa u dhaartay inuusan naa kala hawaysan marka wuxuu ku leeyahay ninka xilabadshee afar xero gashaa xaq jiray qalbiga xubbi kuma naste wallahi xila mid kale xari kuma xiro xaq u yeelatay oon adiga ahayn marka heeska waa hees macaan aniga laftirkeyga uu saaran yahay xila heestaan dhageysano xila waa kala dhageystayaa waayahay miiraale ayaa marti ku ah barnaamijka fankiyo suugaanta ee Samadoon radio caawa agteeda waxaa fadhisa gabar qurux badan oo barnaamijka ila daadihinayso anfac la yiraahdo anfac far baa taagaysa su'aal culus baad u qabtaa wiilkan caawa fanaanka ee fadhiya halkan ku soo dhawow Xuseen Cali Miiraale raadiyahan Samadoon waa dhawahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo heesahaada teebaad ugu jeceshahay wallahi heesayga anfacay waa wada jeclahay heesa nabca ma jiro laakiin mid baa kolba gaar ahaan ku waxa igu weyn hees la yiraahdo Suleeqa oo taariikh dheer ku leh gabi ahaan fankeyga oo anigu aan sameeyay erayadii laxankaba maadaama ay taariikh ku leedahay maxaa taariikhdaas ka sabay haddaan ku weydiiyay wallaahi anfacay taariikhdeed waa dheertayna waqti u heli weynaan ka baqaayay saaxiibkii muusiga tuma aan u sameeyay heeskaas asiga xaaskiisaba laakiin haddaan rabo inaan sii guda galo waa nagu dheeraanaysaa waa saacad iyo ka badan okay waad mahadsantahay waan dhageysan doonaa ayaan filaynaa waayahay anfac su'aal culus bay ku weydiisay jawaabteedina runtii ma aadan dhamaystirin laakiin tayda bal isku day inaad dhamaystirto heesaha afka Soomaaliga lagu qaado mu'allifiintu alifaan magacyo loo kala bixiyaa qaar baa jacayl qaar baa gabdho loo qaadaa qaar baa geeda iyo geel loo qaadaa magaalooyinka ka war magaalooyinka hees ma u qaada wallahi horta magaalooyin badan oo aan heesa u qaaday way jiraan laakiin waxa jira hees Hargeysa la yiraahdo cusbaa oo beri hadda ayaan dhaweyd aan u sameeyay madaxweynaha Soomaaliland oo noogu yimid dalka Mareykanka magaalada Columbus marka heeskaasaan hadda xasuustaa Hargeysa Soomaaliland oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay inuu jiraan maleena haysaan idinkuba waanu helaynaa waxaanu nahay Samadoon radio wax kasta oo la dalbadana waanu helnaa bal waxaan rabay marka madaxweynaha iyo Hargeysa magaalada iyo dalka oo dhan baad u qaaday soo dhaweyn baad ka waday soo dhaweyn ha madaxweynaha ku soo dhaweeyay Hargeysa aan wada dhageysano shacabkana dhageysanaan u siideen waa tan Hargeysa heestii iyo codkii Xuseen Cali Miiraale habeen wanaagsan halkan waxaan aad iyo aad caaw uga hambalyeynaya saaxiibaday Fartuun oo qaaliga Fartuun Cabdullaahi Warsamo waxaan ku leeyahay dhalasho wanaagsan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka kala shaqeeyo radio Samadoon iyo fanaankeenii Xuseen Cali Miiraale maxaad caaw saaxiibaday ku oran lahayd dhalasho wanaagsan hadda annagu ma qabno hees loo qaado dhalashada horta ma laha jirna hees dhalashada loo qaado oo xoogaa waa ma sameey jirin anagu laakiin waxaan leenahay happy birthday to you
waxaana ku dooreynaa insha allahu tacaala fartuunay hees la yiraahdo ina abti heesta fartuun inta aan loo dalmin barnaamijkii fanka iyo sugaantan bartamaha uga jirnaaye waxaan ku weydiin lahaa ninka la yiraahdo xuseen fanka Soomaalida dadka ku soo biira da'da yar mu'allifiinta wax alifa runtii wada tira yar mu'allifka ugu jeceshahay adigu وليه تاسورت بسؤال أذك أنا مؤلفين تودوا واجعله لكن معلم كي كانوا جعله قبل جود واجعله مؤلف نكستوها الأبورة معلم كاجو أها سنجوب محمود عبد الله عيسى سنجوب محمود عبد الله عيسى سنجوب معلم كاجو أها فلانين تهست قبلي ويلنا قفاد عاشق صنته رياضة يموزق أيكو هساني يقاب كودات عشان يجران حسنا هرت النول بو هسا وماركتي استيج سو استاجو هس قاعدة نول با نينو راديا وحيسيا عدكيسا oo lan adiga waxa laga yaabaa midaan adiga waxba kula ahayn inuu aniga balaayo ilay marka anu ninka aan maaragtay inta badan dhageysta waa Allah u naxariista waxa la yiraahdaa Yaasiin Axmed Digfar wala xamiiste waa heesa caana oo Soomaaliyeed la yaqaan kooxda horseed hormuud ahaa jiray Allah u naxariista fanaanada daada yar sidoo kale codka macaan leh gabdhaha isku dilo heesaha lamaanaha aad u badsadaan heesaha lamaanaha aad qaado mid aad ugu jeceshahay ma jirta adigu oo aad caawa aan ugu gabagaban lahayd barnaamijka fanka iyo suugaanta niyo waxa jira hees qaali ah oo la ii sheegay anu horta kulay Maxamed Saleebaan ma arkin laakiin gabadhu hees ay ii keentay gabar leeyahay Farxiye Kobayare Mareykanka ay la timid oo aan isla qaadno leeyahay ina abti hees aad macaan aan jecelahay ahaa inkastoo ayadu ii sheegtay Maxamed Saleebaan erayadii laxanka balaha miisigana Bashiir Hanuuniya laha barnaamijkii fanka iyo suugaanta khiyaarta hawada naga dhageysanaysay Samadoon Radio FM ta habeen walba waxda kala xiriira 99.3 waxa ay noqonaysaa marka inaan ku gabagabeeyno heestii ay codsatay anfacay saaxiibteeda Fartuun ay anfacay Fartuun Cabdullaahi Warsame dhageysi wacan Fartuun Cabdullaahi Warsame iyadoo heesta dhalasho lagu buuxinayay fanaan Xuseenna oo u mahad celiyo yiri marka habini aan idhaahday dhalasho wanaagsan oo ku yiri marka anigu xasanana waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii fanka iyo suugaanta caawa aad waqtigaaga qaaliga aad noogu soo hortay adigoo noogu yimi xarunta Samadoon Radio iyo telefishinkiisa mar kale waxaanu ku leenahay maamulka iyo shaqaalaha guud gabdhiyo wiilal ka howlgala idaacadan annagoo dhan oo garbaha iska haysana we love you aadna waad u mahadsan tahay mar kalena ku soo dhawow Oslo iyo dalalka Scandinavian-ka ee caalamka intiisa kaleba thank you Xasan waa mahadsantihiin dhamaan wadanka dhan dhalinyarada dhan intii soo dhaweysay sida Deyo family everybody iyo Samadoon Radio kulli waa mahadsantihiin waayahay waa heestii Xuseen Miiraale iyo Kabayare heestaasi aan ku gabagabayno barnaamijkii fanka iyo suugaanta aniga iyo ila garoon kalago farxiyay imaqal ayna abtiday farxiyay imaqal ila garoon kalago farxiyay imaqal unu gabadir kaygiyo amalad nafsayday ayri daban sidiysan ululayay unu gabadir kaygiyo amalad nafsayday ayri daban sidiysan ululayay wan oyayay adiguna ilmeeyo alsa musene agtida